xildhibaan Dayib Xasan ayaa sheegay in dalka Somaliland aanu lahayn warshado wax soo saar ah tii kaliya tii ay Somaliland lahayna ay in muddo fadhido isla markaasina ayna shaqeyn warshadaasi oo ah sibidhka wuxuu ayaan darro uu ku tilmaamay in sibidhka Somaliland looga keeno dalka dibadiisa dhaqaale fara badanna uu kaga baxo xildhibaanka ayaa ganacsatada ay warshadu u xaniban tahay u soo jeediyay inay warshada kiciyaan si looga faa'iideysto oo ay shaqo ugu noqoto dad badan oo bilaa camal ah ama haddii ayna taasi awoodin in ay dawladdu ay ku wareejiso shirkado shisheeye si ayna u xanibnaan waddankeenu warshado male warshado wax soo saar male mid kaliya la hor midna way fadhidaa waxa fadhida warshadii sibidhka waxa inoogu jira warshada sibidhka waxa inoogu jira sibidhkii oo waxa inoogu jira istambarkii oo waxa inoogu jira maxaan ku dhahay jiingadii waxa soo dibadda laga keenay waa dhaqaale Somaliland ka maqan waxaan soo jeedin lahaa ganacsatada gacanta ku haysay 30 sano xaniba taayna ama warshada ha kiciyaan oo warshadaasi 4,000 oo qof baa ka shaqeynaya Somaliland dalkan ha u noqoto ha u kacdo ama haddaanay awoodi karin dawladdu shirkado shisheeyaha ku wareejisa DB walo kale baashaas ay noo shaqeysto sibidhka Ethiopia nimka ku shaqeysana Kenya halka taadsan waxaan leeyahay dhaqaalaheena inaynu kobcino inagu isku tashano oo aynu isku tashano ganacsatada iyo dawladda iyo shicibba ayaan u baahanahay geesta kale xildhibaan kamid ah guurtida Somaliland ayaa waxa wasaaradda xanaanada xoolaha uu ku eedeeyay in ay suuq aan Sacuudiga ahayn ay u weyday xoolaha Somaliland iyo sidoo kale kalluunka badaha Somaliland buu dhaafiyay dal quraata ayna u waaridin taasina ay tahay shaqo ay gabtay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga wuxuuna xildhibaankan u in sida ugu dhaqsaha badan loogu yeedho mas'uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga aadka Itoobiya la geeyay kalluunkii Indiana oo shaka laga soo saarayna waa la geeyay maanta laba diyaarood baa ka taga oo kalluuna waxa weeyaan anigu waxaan oran lahaa lagu soo daro marka koowaad wasiirka xoolaha nool iyo kalluumaysiga dhaqaalihii laf dhabartii oo dhan baa labada ku fadhida arrintaas waa muhiim weeyaan kuma jiro baad moodaa hadalkan ayaa xildhibaanadu waxa ay ka jeediyeen fadhi ay maanta yeesheen guurtida Somaliland oo shir gudoominaya gudoomiyaha golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan Maxamuud Xasan Horyal TV Hargeysa